kani waa cabdi maxamuud xasan oo ku magac dheer cabdi dhicis waxa uu kamid ahaa ciidamadii SNM ee ka soo qayb qaatay halgankii dib u xoreynta wadanka Soomaaliland waxa uu dhalay 11 caruur ah xaaskiisa Aamin ayaa soo hoysay tan iyo intii uu xanuunku haleelay waxaana sheegtay inaanay cid ku garabsiin la tacaalida xanuunkiisa oo ay kaligeed la hirtamaysay ilaa haatan cabdi dhicis isagu waxa uu noo sheegay inay soo wada halgameen mujaahidiin badan oo ay ka mid yihiin Muuse Biixi Cabdi Maxamed Kaahin iyo qaar kale badan halkaas oo mujaahidiinta qaarkood u tartamayaan jagada madaxtinimada halka qaar kalena ay yihiin madaxda dalka isaguna uu yahay mid la saaxiib asal ku haynta dhulka قاسم بدابو كيم قصة الصندوق على حاليا وحنا عايزين فارقة كل عايزين تكون اسمها بهاي بس أساس إذا من الشيء اللي بكون جرا بدك يسوي خوب يطلع صدق أنا بحيو شغلة سياق سدير الحيو يوم ما شغلة وين الوطن أنا كل يوم حمصنا يا عيال هين أولادين ننتو أيام عقاد فرد الساعة حسنا بعد تاع واحد من الاستعمار مرة مقاس ولا نسأل كذا ما وحنا الأولاد كيلو وقاس ممكن عيد وسهل بيوسف بتي قبضوا صمري الحل صمري فروق صمري فروق بجرا سرعة walaalkeen cabdi dhicis waad aragtaa darxumada iyo dayaca ka muuqata faalig baa naafeeyay lugta bidixna waxa kaga jira rasaas walaal adiguba ma jeclaateen in lagu daawado ku darso cabdi dhicis ceelna uma qadna cidina uma maqna walaalkayga muslimka ah oo wixii aad awoodo ugu soo hagaaji telefoonada shaashada kaaga muuqda